shir looga hadlayay horumarinta deegaanada Jubbaland isla markaana ay ka soo qayb galeen gudoomiyaasha degmooyinka iyo kan gobolka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. Fafaahinta warkan waxa inoo soo diray wariyahayaga Saabir Cabduqaadir Warsame. Saabir Honesty. shirkan oo ahaa mid ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland isla markaana ay ka soo qayb galeen gudoomiyaasha degmooyinka iyo gudoomiyaasha saddexda gobol ee Jubbaland, mas'uuliyiinta Jubbaland iyo marti sharaf kaleeto ayaa waxaa diiradda lagu saarayay laba qodob oo kala ahaa ammaanka iyo horumarinta deegaanada, iyadoona gudoomiye kasta looga dhageysanayo waxqabadkiisa. wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish oo si kulul ula hadlay gudoomiyaasha deegaanada ayaa sheegay inaysan Jubbaland u baahnayn qabiil isla markaana tabasho kasta uu ka codsaday in si hoos loo xaliyo. intaasi kadib waxa uu xusay in degmooyinka Jubbaland loogu talagalay mashaariic horumarineed loona baahan yahay in laga faa'iideysto. odayaasha aan ka codsadano adeerayaalow beelaha aad duubka u tihiin qabyaalada halaga celiyo uma baahna Jubbaland qabiil. dawlad baynu samaysanay, maamul baan samaysanay, gobolooyin iyo degmooyin baan samaysanay, madax baan u magacaawnay, aanu aamino hadduu qalad dhaco oo qaladaad ay dhaceen waxaanu ku xalisanaynaa si maamul ah. mudanayaal iyo marwooyin, barnaamijkaanu ma ahan wax adag oo dhib badan oo dood u baahan oo wax fahansiin oo wax ga dhaadhici. hay'adaha international ah ayaa dawladda Jubbaland waxay ku taakuleeyeen inay ka caawinaan horumarinta dhan walba. waxayna yiraahdeen Jubbaland budgetkaas aan idinku talagalay waxaad u gudbinaysaan degmooyinkiinii, degmo walba mashruuca iyada codsanaysa, baahideeda iyada sheeganaysa, laakiin hal condition. wasaaradda arrimaha gudaha mashruucaas naloo ku tabarucay ee madaxdeedii degmooyinka iyo goboladu ay fadhiyaan hadday iyagu shaqeeyaan shacabka iyo odayaashooda inta kaashadaan iyo bulshooyinkooda ay degmo walba inay lacagta u hor qaadato mashruucana bilaabata ay ka shaqeeyaanna mashruucu waa hergelaya. haddii kalena nimankii lacagta keenay muska inoo fadhiyaan waxooda u ceshanay. madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo daahfuray shirkan ayaa sheegay in maamulka Jubbaland uu diyaar u yahay horumarinta iyo xasilinta degmooyinka Jubbaland iyo kan gobolka, isla markaana gudoomiye kasta waxqabadkiisa qabyada ah loo dhameystiri doono si loo ambaqaado tubta nabadda iyo horumarka deegaanada Jubbaland. mashruucan waa mashruuc dawladda Jubbaland ay hogaaminayso weey, ma aha mashruuc ay hogaaminayaan hay'adaha samafalka, ma aha mashruuc ay hogaaminayaan deeq-bixiyayaasha. ciddii nagu kaalmaynayso oo ama haddaba wax noogu deeqday ama noogu deeqi doonto waa u mahad celinaynaa. mashruucan degmooyinku tegayaa, tuulooyinku usii gudbiyaa, degmo walba beelaha hoos yimaado iyo tuulooyinka hoos yimaado sii tegayaa. macnihiisu waxaa weeye war waxaanan haystaaye yaa waxay ugu daray. dawladda Jubbaland miiska waxay soo saaraysaa waxa ay u haysa deegaankaas. shirkan ayaa noqonaya shirkii ugu horeeyay ee dhanka horumarka deegaanada looga hadlo oo ay ka soo qayb galaan gudoomiyaasha degmooyinka iyo kuwa gobolada maamulka Jubbaland, kaas oo ka furmay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. waxaana wax badan ay iska bedeli doonaan nolosha dadka deegaanada Jubbaland haddii uu dhaqan kala mashaariicdan Jubbaland ay ka bilaabayso deegaanada saddexda gobol ee Jubbaland. Saabir Cabduqaadir Warsame, Saabir Honesty, Telefishinka Somali Cable, Kismaayo.